هديدات كغر شركيو وما حد والله قدقين شاحيل كنا روح وديران ميزان وغين كدرين ظروف تيون ولوشاداك لما نادن اسكو ديدان حالكوغا مديدايين لبدا اسكو دوبان نامين كودغا شحدود هادان كلمي لابو هشين شعيلكنا لو درنين ظروفا تاغان إيو عصري بدوني دي لهارين dulqaadka ayo sidaan duusha kugu sido haddaad daacadigu tahay dhexdeena dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban dhexdeena dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban هروسو dhaaf سيفدا قبل سيفدا ابي قبل دي مين في عنتها قبل قبل دي يا الله قبل دي في عنتها سوما هاي دوا في عنها هيدا ها ابون كو في عنها لكن ابو حنكا الا ان نكن كبرو يا وي على يا لا هذا ابي واني كان يجي يسوي بدبادي رقاس يجي يسوي بدبادي داوديال مسلكن الداونيسان waxaa lagu tarjumay Studio Asal 24 TV ابي بعدين ما في عنتها هنا أوديك يوم حكى سيانا وحبة دب مجرى إنك يجيو بدي ما تفريستان محسكم مرتياني سانا نينك يجيو أديكنا دي كركا كوير كعسن مع معايير بالك يعني هدي العنتنا هو عارف ما هذا يسا ما أنا حتى وقت أنا وحنا ما بهايبه markii fasax waadin bariye الله إنك يجيو إلها كعفي محد سدا أولا هذا هنا
ninkaygii soo nalama cunteenayo inanka yar haa waanu la cunteenaya waa qasab dee maxaad sugaysaan dee yaro fariista ninkaygii adigana dee martida soo dhaweey haye haye cali ma fadhiisanayno ها وفرسانينا ina mari sinaan muxuu la habsaamayna hooyo inanteedii aniga hadda kuma sheegi karo meesha kuma qayaan lama filaan inaan kaaga dhigan doonayaa dee koksal maxaa kaas yaa madax cuntada cuntidna waa cunaya xaaskayso ma aragtidna cuntada ما شاء الله معان caafimaadka cun inankaygiyo إن شاء الله aabe ninkan naftiisa tayda ayuu u huray نجدها هنا أمانة بدن يجيري بني آدم اللي بعتسم يكون فرسن كرا وما وأنت سوكلي intuu aniga badbaadinaya xitaa xabad ayaa ku dhacday ma ogtahay raggaasoo dhan asiga wuu laayay midhka muu tegin baan ku dhaaway midda kale madowga ayuu ku dhameeyey mugdiga soo ma inankeygiyo ilaahay ku xafido waadna mahadsan tahay maadaamaad gabadheedii naftaada u hurteen ما يولي سكولي واجب كي قلت وكلي waa wax iska caadiya maxay tahay naftaada ayaa tayda u hurteen جدها هنا يجيري وحنكا عنو waa runtii ayada darteeda xabad kugu dhacda ماما واحد سكعادية واحدة ما هذا يلا لوبح aabba wax kalena idiin sheegin asiga samaa faraha ayuu kala bedelay markaas xitaa niman ayayna soo eryanayeen tuugadiina soo eryanaysayna meesha ayay ku hadheen annaga rumaantii waan soo dhaafnay iyagana ayhuni يا نسوق may يا may أنا ويلكي لو ما ليسي لو ما لكتب وقوس الله وانا وحي كده بينا فصح عين قادنينا وورينا بدنا كوجينا جدين كان كوجينا واحد دونتنا أنا كوسو ابن ويلكي شام هيدا ويا ابو ما شام يرى خطرته أنا وحي رسول الله منها may hasaaran cunuga macquul ma aha qorshaheena cunuga kuma jiran hasaaran cunuga يا الله dib badana maxaan sameynaa may aabe حقول هذا alla ninkaygiyo maxaa ku helayna هذا ما حقول له waxay rabaa wareer dhiiga igu kacaa umaleynaa ديك واكدع waaye biyo milixle ma kuu keenaana may ani waxa iiroon kor inaa iska koro xogay nasashaan u baahanahay idinka meeshaan ii sii joogo caafimaad ku cuna waa sii baxaya ani koraan koraya أضي iga tag inanteedii aniga odaygan yara aadayaay adiga martida soo dhaweey mar kale ayuu ku kacay maxaa ku kacay kuma fahmine xanuunka ayaa ku soo kacay aabbahay hadda ka hor aniga aabbahay shil ayuu galay shilkaa kadibna asiga mar walba sidan ayuu u soo naxayaa siday doontaa igu qaadata adeerka aniga ayaa gacanta ku dhigayo halo hagaag waaya ninka guriga kusaal u diray isoo waxay hadda sifdama guriga soo laabatay haa laakiin maxay tahay ilkaha birta kala fur caliyaa la socdo gurigayna wada joogaan hadda sidee ku dhici kartaa waa inaan isla hadeertaan dhaqaaqnaa si degdegaa weynayna keen igaarkayga xaliya xaa zaa'ide cawada wejigaaga ima dhadha mooye khayr sheegan ku dhahay ninkii cali ahaa guriga seefta ayuu tagay haddow aadayn xaa kaa gala adiga ma ninkaasaa weli daba joogtaa aniga ninkaas ka har kuma dhihino ninkaas iskaga haran ku dhaa waa kuu sheega
ninkaas ma awoodo inaan cafiyo qoftan guursan lahaa ayuu gacmo gacmaynayaa aniga waxaas uma dulqaadan karo waan gubanayaa ninkaas waa inaan dilaa aniga ama uu asagay dilaa aniga ninkaas uma dulqaadan karo cudurku abaaqa waa noocee dhakhaatiirtu waxay yidhahdaan shilkuu gala dartiis ayuu la shoogsan yahay asiga run ahaantii wuu qarwaa habeenkii 5 sano ka horna ayuu ku dhacay shilkan asigana shilka shoog ayuu ka qaaday run ahaantii dhakhtarka daawooyin uma soo qorin miya waa u soo qoreen uu isticmaal laakiin waxba iskama bedelin maalmihii u dambeeyay anigu waan u baqay haye waxaan ka baqay xanuunkan inuu ku sii siyaado hooyo inanteedii aabay siduu yahayna hadda wuu iska yaro wanaagsan yahay dee dhiikarkunbaa isaga kacsan waa caafimaadaya isdeji inanteeda adiguna inankeegiyo adigana ma caadi aan arkaa wax dhibaato iguma haysan wuu iska caafimaad baan u rajaynaya haddana waxaan jeclaan lahaa inaad fasaxdaan insha allah aad ayaad u mahadsan tahay habeen wanaagsan ina mar anigana kusii dhaweeyey okay علي wax walba waan kaaga mahad celinayaa seefda intaan ka badan waa diga xishoodsiinay maxaa yeelay gudaha markaan ku jiray ammaanteeda dhigaysay haddana qalleeno waayahay kulanti dambe xiiso leh sidoo kale haye cali again بريتو لغوريغا ما joogtaana ma sheegi karo berit sidee noqonaysa ilaah baa og waa arki doonaa dhib ma leh habeen wanaagsan habeen lamida isma dhaafin cali one more waqtigan kula qaataan ku faraxsanahay daawad yaa mustaqbalkan aad daawanaysaan waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV yaa odaygeegiyo maxaa ku helay dee soomaada jiifinna aabe ma baxay isaga caliya haa wuu tegey haddaba kaale aniga isoo raac waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kaale halkan fariiso horteedana soo fariiso waxaan rabaa ninkan wax walba ku saabsan inaad iiga sheekayso sidee isku aragteen ninkan asigay ma arkan runaantii aniga ayaa u tegey yawan abaayo sinaan wax walba aniga darteeda ayaa ku dhacnaa abaayo iska ka yacafo ku barya aniga waxaan ka baqay adiga inay dhibaato ku soo gaarto abaayo waxba ima soo gaadhin walaal waan fiicanahay soo ima aragtidna kadib waxaad ii sheegtaa mafaaji'aadkaad ii haysay الله walaalkay waxaad ii keentay aniga keegaan jeclaa run ahaantii seefta kaale aniga waran ay ugu taaganay way si fiican wax igu sheeg waaya aabe u kaadana wax walba kuu sheegay adiga waad ogeed sama habeenkan guriga ka cararayay ha
marka ay nimanka ku erinayn ayaa gurigiisa si lama filaan ku gasho sidaas ma gabadheeda ii sheeg baladan ku weydiinaya ها aniga waan ku qasbanaa maxay la cabsi ayaa ii geysay guriga inaan galo maxay rag badan ayaa aniga eryanayay cali gurigiisa saas ayaan ku galay ninka aad gurigiisa gashay ma taqaana qofku yahay maxay tahay aaba su'aalahan badanaad cali dhinaciisa aad iga weydiinaysid inanteedii aabaa uu saxsan yahay dee nin dadaweye ninka cid uu yahay in la garan maayo in lagu weydiiyo waa sax ha aniga wax dheeriya kama ogey inuu xaaskiisa furay oo keliya iyo in inankiisa laga dilay wayna ku dhaw ilaahay oo naxariista ma inankii yaraa baa laga dilayna alla inanteedii waan ka xumahay laakiin yaa ka dil canugiisa seefdaa ma rabo ninkaas mar kale inaad la kulanto ilaa hadda kuma fahmin aabbo gabadheeda adiga afkaaga ka dhahay ninkaas wiilkiisa waa la dilay sidaa darteed waxaan qiyaasay inuu cadow leeyahay waana run cadow uu leeyahay ninkan inanteedii aabbaha waa runtii dee hadalkiisa maad maqashay inantaada ayuu soo badbaadiyey misana waad u mahad celin weysa aab maxaa kugu dhacayna adiga markuu kuu yimi adiga wejigiisoo keliya ayaad ku maqnayd aabe aniga waxaan fahmi lahaa arrinta waxaad ilaa heerkan u gaadhsiinaysid war ninkan maxay igu mashquulinaysaa anigu waxaan ku dhahay cadow ayuu leeyahay oo keliya cadow ma lahaan aabe aniga ayuu naftiisa ii huray ninkaas maxaa saas u leedahay marka aabe ninkan haddii cidi doonaysa xaafadda caan ayuu ka yahay masaajid ayuuna ka tujiyaa shiiqay leedahay shiiqa oo xaal qaada ninkaas shiiq maahayna shaydaan waay masaajid ayuu imaam ka yahay saas darteed dadka xaafadda shiiq ayay ugu yeedhaan weli shiiqiyaa kugu qafilan soo ma waxa saxo kama jiraan naftaada been hawsheen gabadheeda aniga ma awoodo inaan seefdaa la'aanteeda noolaado mana raba cadow inay yeelato aniga darteeda ninkaas cali la dhahayna adiga cadow inuu kugu noqdaan diidanahay waa ku baryaa marka adiga aakhirkaaga anaa ku jucaayo waana iga kasbay aan ku dhah cali intaada gaarin anaa kugu kalbaxaayo qabo bistoolada dil dil mar horyaanba agtaada ka dhintee toos ii dhammaystir qabo maxaa la taagan tahay dil aniga yaa banduuqan mahaaga ku ceshaan ku dhahay anaad cayaar iga dhigatee hali iima noolaanaya aniga waanu dhammaynayaa weliba hadda aryaa xaliga joogan ku dhahay ima maqashid miya ma samay karti middaasaan ku dhahay cagaha hoostooda inaad ka socotida kuuroon ninkaasuu ku dilayana aniga inaan fiirsado uma dulqaada kara ma ii fahantay maxaa yeelay aniga adeeroo keliya kuuma ihi adiga waxaan kuu ahay aabbahaagoo kalean kuu ahay waana kuu danqaa aniga amba sidoo kalean kuu haystaa adeer aabbahayga markuu dhintay kadib adiga ayaa isoo xanaanayay booskiisa ayaa buuxisay i dhegayso wiilkayga adigan kula hadlaa ninkan cali la yidhaahdo ciyaaraha u malaynaan ku dhowaa nin balaayo ka dhacday mugaad dilaysina waxaa loo baahanya inaad qorshe u degto qorshe la'aan haddaad weerartidna waa eber adoo kugu yaaca ninkan dhegayso wiilkayga cadowgaaga mugaad weerarays inaad aqoon u leedaha fiican
teeda kale aniga waxaan kuu sheegaa ninkan cali la yiraahdo waa nin baha leh hal meel oo ka jilcan yahan asaga jirto halkaas meelna waa walaalkiis wax walba nagu qaadato walaalkiis yaan gartay adeer hal talaabo oo qaldan aad qaadin aniga iyo adiga nafta inaan ku weynaa laga yaaba iska jir daawadayaal musaalkan aad daawanaysaan waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV मोहब्बत से नहीं वाकिफ बहुत अनजान लगती हो हमें मिलना जरूरी है हकीकत ना समझती हो कोई कैसे समझ पाए किसी के दिल का अफसाना मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना